runtii waxaan rabaa 4 qodob iyo mid shanaad inaan ku soo koobo maanta waa maalin farxad weyn kow horta waxaan u hambalyeeynaa barlamaankii Soomaaliya oo meel mariyay hambalyaan leenahay gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ka warbixiyay wixii ay ahaadna ku sheegay dadkii aan ogeyna u sheegayna waxaan leenahay mudana gudoomiye waa ku mahadsantaa shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinkii ku dhacay inaad fasirto oo ummadda Soomaaliyeed aad u fasirto waxaan ku leeyahay aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay waana ku hambalyeeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo tala keen naqday oo tala wanaagsan bixiya barlamaanka horteeda ka codsadana waxaan leeyahay asagana waa u mahad celinaynaa annagoo ku hadlayna axzaabta siyaasadeed anigoo ka wakiila kuwooda weliba hor socodka oo baraandir inay guulaysato jecel marka waxaan isagana ugu hambalyeeyaa taladii wanaagsaneed oo uu keenay shacabkuna ay soo dhaweeyeen isla markaasna axzaabta hor socodka anoo afkooda ku hadlaayaan waxaan leeyahay waa kaaga mahad celin gudoomiyaha oo u nasiib u yeeshay oo haddana hore loo sheegay gudoomiye kasta waa jiriya laakiin waxaa jira sideedaba nasiibaa la isku soo dhaafaa ilaahay jinnada markaad galee wuxuu ku leeyahay wa amma aladiina saciduu fa fil janna qofaan nasiib lahayn jinnada ma gasho marka cumar xilligiisii in magaaladaanu ay matalaad yeelato oo gabdhahan Soomaaliyeed mid ka mid ahoonan hadda aqaanin ay kursi ku fariisato isagana taariikhay u tahay annagana waxaan leenahay gudoomiye nasiib wanaagsan aad iyo aadna waa kuugu hambalyeeynaa hal qodobaan marka ku soo gebangebayha oo aayad quraana barlamaanka waxaan rabaa inaan u sheego dastuur iska dhaafe aayad quraan ayaad meel mariseen ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu kuwii alla iyo rasuul rumeeyow idaa qiila lakum tafassaxuu fil majlisi haddii laydiin yidhaahdo majliska ballaariya dadka u fasaxa oo u ballaariya majliska aqalka sare oo isku cakiraay oo isagu mataqaanaa naftiisu u baahnay in lagu soo biiro majliskiyaa la ballaariyey waana aayad quraana ilaahayaana yidhi haddaad aayad quraana aad marka meel mariseen waa ogtihiinoo dastuurku wuxuu ku dhisan yahay wax allaala wixii shareecada ka soo hor jeeda waxba kama jiraan waay shareecada islaamka idinkoo fulinaya ayaad majliskii ballaariseen gobolka baraandirna ku soo dhawayseen xaqayna u lahaayeen ilaahayaana idiin sheegay waana fuliseen aad iyo aad aad u mahadsantihiin marka ogaada aayaddaas qur-aanka ahaad fuliseen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh